sida awgeed waxay culammadu tilmaamaan ammaanaadka acdaadaada maalan ishu waa ammaano laakiin maxaad ku isticmaalaysaa wixii sharcigu baneeyey uun wixii kale waa khiyaana khaa'inat ilacyun bay noqonaysaa gacantu waa ammaano carabku waa ammaano caqligu waa ammaano lugtu waa ammaano waxoo dhammi ammaanay noqonayaan markaynu dhan kale ka eegno diinta oo dhammi cibaadaadka salaada soonka waajibaadku saaran oo dhammi waa ammaano xagga kale markaynu u eegno waa mas-uuliyaadka dhammaantood ka bilaabanta mas-uuliyadda guriga reerku waa ammaano caruurtu waa ammaano ilaa iyo laga gaadhayo madaxtinimada ugu sarraysa khilaafat almuslimiin iyo wixii ka sokeeya ama umaro dhe ama muluuk dhe ama states iyo dowlada niman xukumaya dhe ama shirkad qof xukumaya dhe wax kasta oo markaa mas-uuliyadoo ku saarani noocay doontaba ha u ekaatee xataa shaqadaad qabanaysa ha ahaatee mushaarka qaadanayso wax kasta oo mas-uuliyadi kaa saarantay waa ammaana la rabo inaad u gudato sida ugu fiican waxaana qur-aanku uu tilmaamaya inay tahay sifaadka ugu sarreeya ee bini aadam lagu sifeeyo honesty dadka bini aadamka waxaa ugu koreeya rususha oo dadka ugu sarraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka koowaad ee uu ku sifeeyey waxaa ka mid ah ammaanada walidalik baa nebi waliba maalan fii suurati shucaraa aayaadka istaba socda markaad akhrido 107 ilaa iyo laga gaadhayo 187 shan lix nebi meelahaasaa ku jira nebi waliba wuxuu leeyahy innii lakum rasuulun amiin dada waxaan idiin ahay rasuul amiin ah wixii loo soo dhiibay xilkeeda qaadayo sidiisa u gudanaya innii lakum rasuulun amiin bale rususha cidda waxyiga loogu soo dhiibo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya jibriil sifaadka laynoogu sheegay wax weeyaan alruuxu alamiin muطaacin ثم amiin nazala bihi الruuxu alamiin ilahay wuxuu ku tilmaamaya sifat alamaana inuu yahay mid aamina oo wixii loo soo dhiibay ambiyada sidooda u soo gaadhsiinaya nebiyullaahi moxamedna calayhi الsalaatu wasalaam waa sifaadku ku caanbaxay xataa qabla risaalati intaan ilaahayba rasuulnimada u dooranin asaadiqu lamiin bay carabi u taqaanay inuu yahay ku credibility uu leeyahay hadalkiisu saadiq iyo run yahay wax la qiimayn kara uu yahay isla markaana aamina waxaad ka garan kartaa warkii dhex maray ee imaam albukhaari uu soo saaray ee boqorkii romaniska ka talin jiray heraklis lo odhan jiray iyo markii ay kulmeen nimankii carbeed ee gaalada ahaa oo abu sufyaan hogaaminayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqu u kala diray boqorradii dunida ka jiray oo uu leeyahay islaama dabeetana heraklis oo yimi beyt ilmaqdis ayaa waraaqdii u timi kadib buu wuxuu yidhi ninkan yaa garanaya wuxuu rabaa bal ninkan waraaqda u soo diray inuu warkiisa helo isagu de waa halka maanta dowladaha waaweyne ku jiraan buu markaa dunida ugu jiray marka qof aan laba garanayn isaga agtiisa ayaa waraaq ka helay qofkan aniga waraaqda ii soo diray waa kuma buu leeyahy yaa garanaya waxaa la yidhi qola isku reeriyiin baa joogta magaalada igu yeedha buu yidhi 6 nin ayaa u yimi oo carbeed oo abu sufyaan uu hogaaminayo abu sufyaan waa nin gaala markaasoo muu islaamin abu sufyaan markuu nebi maxamed 21 sano meelaha la dagaalamayay buu islaamay 2 sano u dambeysay ayuu muslim ahaa laakiin 21 sannadood nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo horjeeday wakhtiga kanina markaa waa wakhtigii sulxu xudaybiya u dhacay almost waa 19 sannadood bay markaa nabiga is hayaan 19 sannadood isagoo dagaaladii soo dhex mareen oo beder iyo uxud iyo wixii oo dagaal soo dhaceen ayuu heraklis waraysanaya 14 su'aalood ama 13 su'aalood buu weydiiyey oo uga jawaabaya su'aalaha waxaa ka mid ahaa oo herakl weydiiyey war ninka kani muxuu idin amraa waxaan uu wada ii sheeg wuxuu yidhi wuxuuna amrayaa innahu ya'mur biالsalaati والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة
أبو سفيان وقال كورم يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي وليمي وحنا ليمي بويل الصلاة لتكدو رون لا شيغو دور سنة لا دور سنادو بلن كل أوفيو يا أمانة أول لقطه وحنا أمروا كاسبيل أبو سفيان هرقل الإسلام مركب وحكو جوابي هذه صفة النبي وحنا دي شيغيسا وصفات كأي نبي يدل هاي مركل وحويدي هل يغدر وحما خيامية بلن فرو ما سمية تذكر انتو بلن ما لقلو ما كاكب حال خيامة باب كاسية ما سمية وحيولي مي تانا مي يقانو وكذلك الرسل بيولي لا يغدرون الرسل شنا وحما خيامية إذن وحن لنا وصفاتك وعامسا يا إلهي سبحانه وتعالى وكسفيي رسوشيسي ولذلك النبي وحلي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين كيالا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء ورميدني آمنين بولي يدو أنا هيكو آمني يعني رب السماوات والأرض وعرك إلهي وريقا كيرو waxaan uga dan lehnay qadiyadatan ammaanadu qiimaha ay leedahay intuu gaarsiisan yahay inay tahay waxa ilaahay ku sifeynayo rusushii uu doortay ee khalqiga dhan uu ka doortay xataa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam culamaa siira waa kuwa tilmaama sidoo ammaanada u fulinayay iyagoo ishaya oo ay rabaan inay dilaan haddana wixii ay u dhiibteen ammaane u hayay kalamu baxsanin bay yiraahdaan ومركو هجروني وحلا يدادا علي وحيابه وربي وحكمدها إنه سيدي بي وحي أمانوين أي قال لهيت إنه كذب وعليه وحكى له إلهي القرآن كنت المام يا أمانة إنه يتهي صفات كأغمضا ضدك جنة قوبتا وقصر رئيسك القلية جنة وهيرر هير كيدا وقصر رئيال الفردوس لا على بالله يدادا فردوسك وقلية إلهي وحكو سفيي طبعا الصفة القرآن كنت المامة وحكمده والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقوى أمانة دودة إيا وحي بلنا يقالان راعبا ليري حولا قفك الراعة محسمية وحفظية وإلالية بهالية وحوال بواكا دورة إلهي وحولي وقوى إلالية أمانة دودة إيا عهد دودة دبتنا إلهي وحكوت الماما كواسين كمدين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الفردوس الأعلى قوة نحليين إيتاي في سورة المعارج مرك لا إلهي وحكوت المامية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كدبنا إلهي وحلي أولئك في جنات مكرمون كوا بلن كوديا أمانة دودا إلى لنيا وكوا إلهي بولي جنوين لقو كراميي لدجينيو إذن أيها الأحبة أمانة دينها نالكاسي شوفتا رسوشا لغو سفيي مؤمنين تكوي وغو سريي لغو سفيي صحابة حتى كوي وغمضنا عشرة المبشرين كم يدبو نبو قوت المامية أمين هذه الأمة ينوي أبو عبيدة بن الجراح مؤمن دمانتين إلهي النبي قوت المامية حديث السنن أبي داود كي صحيحة والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم مؤمن كرنبك أو حلا يراهدا قف كيدتك كو آمنا نفتو ديو يمال كودا نبت قليا كاسبا مؤمن دبا وحكالو النبي كو ينوغا ورميا قصص كي كي هوري يسيدي أمانة داو إلى لنشرين وحان ربا لكن قصص كاس حديث البخاري كو تالا يوحي لما دينا ندافو دنكا كلا هدينو ايغنو أمانة درادو waxay sifo u tahay cidii aan diin lahayn ama se munaafaqa labada ay u fiirso hadaynu dhahay amaanadu waxay sifo u tahay rusul iyo nabiyo iyo muuminiinta firdaws ila ala gala amaana xumadu ama amaana daraduna waxay astaan u tahay man la diin lah ki aan diin lahayn iyo qofkii munaafaqa labadaas ay calaamad u tahay دي قف قال لي هذا آمن بمأها معناه هذا وحويان لبضن صفة مدبال لغو صفينية ولذلك يحدث كإمام أحمد صار الشيخ الباني الصحيح قلت الماميو وحلي أنس بن مالك ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال
nebigu khudbad ma jeedin buu yidhi ilaa iyo khudbad kastoo nebigu jeediya waxaa ka mid ahaan jirtay laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah. anas ibnu maalik wuxuu leeyahay nebi moxamed hadduu khudbadba noo jeediyo erayada inta badan khutabkiisa ka mid ahaan jiray ee uu mar kasta sheegi jiray waxaa ka mid ah laa iimaana liman laa amaanata lah. iimaan ma leh qofka aan ammaano lahayn, walaa diina liman laa cahda lah. diinna ma leh qofka aan ballan ilaalin lahayn. yani waa nooc ammaanada ka mid oo gaar loo sii tilmaamay uun. waa nooc ammaanada ka mid waayo cahdi darradu waa qadri. waa inaad cahdiga khiyaamaysa waa qadr. waalqadru waa nooc min alkhiyaama, waa cagsi lamaana. sida awgeed kaa diin la-aan baa lagu sheegay. munaafiqa markuu nebigu sifaynaya axaadiista caanka aynu naqaano wuxuu nebigu ku tilmaamayaa calaamadaha aayatulmunaafiq buu nebigu yidhi. calaamadda aayad waxa u ah, aayad waa calaama. calaamadaha qofka munaafiqa lagu garto kuwan baa ka mida buu nebigu yidhi. idaa xadaa kadab, hadduu warramo been buu sheegaa. waidaa wacada akhlaf, hadduu ballan qaadana waa buriyaa. hadduu wax yabooho waa khilaafaa. waida tumina khaan buu nebigu yidhi. haddii la aaminana wuu khiyaameeyaa. idan khiyaanadu iyo qadrigu waxay sifo u yihiin ciddii ama diin la ama munaafiqnimo ku dhacday. guud ahaan markaa waxaa layna faray in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha. ilaahay wuxuu idin farayaaba alle qur-aanka ku leeyahay ammaanada inaa u gudataan ehelkeedii ciddii iska lahayd inay ammaanada u guddaan. ammaanadaasi wuxuu doonayaa ha ahaato. ammaanad diineed ha noqoto, mid mas-uuliyadeed ha noqoto, mid reer ha noqoto, mid carruureed ha noqoto, mid diineed ha noqoto, waxay doonaysa ha ahaato. addu lamaanata ilaa ahliha baa la tilmaamaya. waxaana ilaahay qur-aanka aayaad kale ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha wاlrasuul watakhunuu amaanaatikum waantum taclamuun. war kuwa iimaanka laga helayow laa takhunuu allaha wاlrasuul, alle iyo rasuulkii ha khiyaamaynina. alle iyo rasuulkii ha khiyaamaynina. wax kasta oo mas-uuliyad diineed oo aad qaadday haddaad ka baxdo waa khiyaano aad ilaah iyo rasuulkiisa khiyaamaynayso. sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha wاlrasuul watakhunuu amaanaatikum ay walaa takhunuu amaanaatikum. war ammaanadiinnana ha khiyaamaynina baa la yidhi waantum taclamuun, idinkoo og. yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud. aayaadkaasoo dhammi فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إلهي وحط الماما يا وروحي أمانة ليدين فري وحي أمانة ليدين ديبي قلت آيات كانوا آيات الدين تكور رمي هي مرخاتقة هي وصيادة هي وحي لأنه عودا هنا تسودي وقودته. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حليه 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. 4 شيء هداد قصو قنتهي الدون وحي كنا فيدنها كيالن يعني كوا قول استاد كجرته. 4 شيء محيي و4 عكسي ووحي منافق الوشيغي. صدق الحديث، warka inaad runta ka sheegto. wa xifdu lamaana, wixii ammaano ana ama xoolo ha noqoto ama sir lagu sheegtay ha noqoto ama carruur lagu dhiibay ha noqoto ama aqoon diineedoo aad leedahay wuxuu doona ha noqdo. wixii ammaano lagu dhiibayna wa xifdu lamaana, ammaanadana inaad ilaaliso. iyo wa xusnu lkhulq aw wa xusni lkhaliiqa riwaayo kale, dhaqan wanaagsani. iyo wacifatu lmaطcam, xalaal miirad. waxaad cunayso waad iska hubiso, waxaad liqayso waad iska hubiso xalaal iyo xaaraan wuxuu yahay. si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam
إن الخازن الأمين قفك حولها اللو ديبو خسنت هيها آمنك وكي وحولي نبغو عليه الصلاة والسلام وكبحية وحي لفري إساقوان كلا نقصامين هذا هو خسنتي ونساقو شقاك لكم عليه لكن waxa la yidhi khasnajiga aaminka ahi waa ka waxa la faro aan kala reebina si fiican u bixiya isagoo waliba ka raaliya buu nabigu yidhi idan walladayna hum liamanatihim wa ahdihim raacun kima kusifowna mise kuma sifowno kuwa amaanadooda iyo ballamahooda ilaaliya shaqada gaalada u shaqaysaan ama muslim u shaqaysaan ama masaajidda ka shaqaysaan waa amaana ma itqaanisaan ما سكتان وقت قودا ما ويلا لسا وحي وكوا مني ما سودا ما وحفظ سيدي الويدو ودقن ما ودقن طا بسوا قالوا لا اسكندر عمريا وحرم وامانه اذا درسيغو waxaan jeclaa inaan iska soo koobo waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay nusuus badan oo quraan iyo xadiis soo arooray cidii rabta kutubtay dib ugu noqon doonta waa masalada ka warramaya waxaana culimadu tilmaamayaan fi kulli al-abwaabna inay gasho oo baab aan abwaabta ka mid ah oo aan ammaana gelini inaanu jirin nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa dhiiri gelinaya ayuu in badan wuxuu uga warramay xataa umamkii hore dadkii ammaanada lahaa sare wuxuu tilmaamay nin baa nin caqaar ka iibsaday meelahan dhismayaashu ku yaaliina meeshiiba wuxuu ka helay jarra kuusad ama ashuun ama jalxad waxaad u taqaanaba weel uu ku jiro dahab ayuu meesha laga soo qoday dabeetana weelkii dahabkii intuu soo qaaday ayuu ninkii dhulka uu ka iibsaday buu u keenay wuxuu yidhi war anigu meesha baan kaa iibsaday laakiin meeshii dahabkaasaa ka soo baxay dee anigu dahab maan iibsane dhulkaan iibsaday dahabkaaga waa kan buu yidhi ninkii kalena wuxuu ku yidhi war anigu wax ku jirana ma ogeyna dhulkaasaan kaa iibiyey adaa isule wixii kuugu jira iska qaado nabigu isagoo tilmaamaya nimankani ammaanaadka say u ilaalinayeenba wuxuu yidhi labadii nin waxay noqotay inay maxkamad isla galaan iyagoo isku haysta adaa leh iyo adaa leh innaga maxkamadeennu maxay ku salaysan yihin anaa leh iyo anaa leh laakiin labadan maxkamaddooda waxay ku salaysantahay adaa leh iyo maahee adaa leh bay isku hayaan kadib baa ninkii u gar qaadayay qaab kale ugu gar qaado wuxuu ku yidhi carruur ma leedin markaasay yidhaahdeen haa mid baa wuxuu yidhi inan baan leeyahay kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahay deetana wuxuu ku yidhi labadaa isu guuriyo oo dabeetana intan siiya buu ugu garraqay labadaa intaa isku dartaan xadiiska bukhaari ku yaalla labadaa intaa isku dartaan buu yidhi dabeetana labada ku sadaqadaysta xadiisku macnaha uu tilmaamaya waxa weeyaan dadkani siday rabeen inay u xalaal miirtaan innaga sharcigeenna waxba ka yaalla rakaaska iyo macaadinta iyo waxyaabaha dhulka laga helay iyo axkaam bay leeyihin laakiin markaynu axkaamta ka nimaadno mafhuumkaynu ka qaadanayna waxa weeyaan dadkani ammaanada say u ilaalinayeen ayaa waxay keensatay inuu nebi maxamed uga warramo calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii si uu ugu dhiiri geliyo ammaanadu qiimaha ay leedahay wuxuu kaloo nebigu uga warramay nin reer banu israa'iil ah oo nin kale 1,000 diinaar ka amaahday markaasuu yidhi markhaatiya ii keen kafaa billaahi shahiida buu ku yidhi ilaahay baa markhaati inoogu filan markaasuu yidhi haddaba kafiil ii keen kafiilku waa qof kafaaladan qaada markaasuu ku yidhi kafaa billaahi wakiilan ilaahay baa wakiilla ku filan run baad sheegtay buu yidhi xoolihii buu u dhiibay ninkii badduu galay xaajaadkiisii buu soo gutay
waqtigii ay ballameen ayuu wax dib u soo qaada waayey waqtigii ay ahayd ammaanada inuu iska celiyo ayuu wax dib u soo qaada ayuu waayey waxaanu arkay waqtigii inay dhaafayso deetana nebigu qisadaa wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi qori buu soo qaada markaasuu xorday dabeetana lacagtii buu ku guray kookii diinaar markaasuu waraaqana raaciyey wuu u diraya ninkii intuu badda ku tuuray buu wuxuu yidhi ilaahow adaan markhaatina kaa dhigtay ka fiilla kaa dhigtay ninkiina wakhtigiisii way gaadhay si aan ugu geeyo kalena garan maayo ilaahu iga gaadhsii buu ku yidhi intuu badda ku tuuray ilaahi subxaanahu wa tacaala baddii buu ku soo qaaday buu xadiidku tilmaamaya rabbi waa soo gaadhsiiyey ninkii kale oo ayuunbaa badda maalin yimi isagoo eegaya bal inna wax markabi inay soo socdaan oo dee ninkii uu xoolaha ku lahaa wakhtigii waa joogaaye inaynu soo socda buu meeshii yimi dabeetana qorigan soo caariyay ee baddu meesha ku soo tuurtay buu helay qorigii buunbuu eegay lacagtiisii iyo warqaddii buu ka helay wallahi maa ziltu jaahidan fii talabi markabin liaatiika bimaalika waraaqda waxaa ku qoran ilaahay baan ku dhaartee waa ku dadaalaya inaan helo markab aan soo fuulo si aan xoolahagii kugu keeno wax aan soo fuulana waan waaye ee saasaan kuugu soo diray in ilaahay iga kaa soo gaadhsiiyo أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي على كل حال إلهي سبحانه وتعالى وكجدي حديث كم حنا بيقول شيء يا بلنك أي دتك قران سيد أي دتك صالحين تأيو إلى لنين وحكوا سوكوبي يا مركا قصص كساء أروري نبي كساء أروري وتربدين أحاديث أمانة ذا هي النوعيات كذا قال قديسا كساء أروري وتربدين قرآن كمسائل كاس كساء أروري سدة بنية ستوسبة وكساء أروري وتربدين أمانات كنا وينغان لنرش أوردن بيكوتشران وحقف والبصارا مركاسية وبدبادية هدون نقضى مؤمن كاو نبي الشاقي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هدو كسف وبنو بدبادية هديك لنا صفات المنافقين تيكوي الدين لأنت أي كل عيا فاختر لنفسك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أنا وحوجا وعد قوم ما ندين شيء وحي سؤال ديننا علماء ديننا ويدينسا شيخي نيدي السلام عليكم.